شكور حسن صمين أشكى الوجه أنا أشكى أي قرآن أوفر إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أجب أبو فرح سنة عاور إن أنا community يوم with the weather كسانية هي اسمها إنسان لوسو بكنا يا because of the weather. لكن الحمد لله أنت نجم مقارنة مرك أنت أركان جدا بمحمانا إن شاء الله تعالى. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جزاك الله أشكى. سكجول كان دشيت بلانك وحنا قرآن كينو كفاية تعلق علينا أن ربنا مرجع البروفيسور بين آيات البروفيسور محمد إسماعيل نسو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن المروين أنا كهلا مجا قبله يولشي هذا هوشة نوسع بابلي مقعد وحن أذكركم هذين كسوق قبل كان أصير شرفت الوسوق وسيل وسوق القرشين وسوق الجبتين حفلة التنعين هدينا نهاي مع الكوميونيتي كنا الأريا فيرجينيا ميرلاند دي سي إذا والله إسرائيل إنه أصول إنه مانت إنه كجرا استاجنا أما كتاجرنا إذا ما الصومالية ذكر دوان هذا حق محاية كونفورت قبل لها أما حق بودلان ورنتي أسبوعية حول دردر قليل حق الدفاع عدلكي أيينو بالدهم هذعلنيا أنا قبل مرة كمل إنه كهذا يصير وكله وحين أذكركم هذيننا وأنهم بليه جيديننا مدحض الصومالية وهاتن برادكتي وهوشة وكعضي وهاتن وضنكي داكتي وقالين عين ودك الدفاعان أخيرا واستاجي إياه شعبك الصومالية ومنكر هارين سيقرب استاجان عيد المضوضة وحوي وضن كان سنة وجدنا waxa uu gaaray meel aynaan filaynin haatan markii la arkay buuraleyda buuraha maxaa bari iyo ajaanibtii ku jirtay iyo dadka ku jirtay quwadda taali dadkii gobolka ku nool xataa ma filayn aad bay maaragtay looga naxay waxa weeye ciidamo calooshoodu shaqaysata oo ka yimid wadamo kala duwan ayaa wadanka ku habsaday in yar baynu u jirnay in meesha ay noogu dhamaato marka saad la socotaan waxa weeye in hawsha waynu la socono ilaa dhowr iyo 10 sano 20 sano u dambeeyay wayna haysatay argagixisadaas oo maaragtay wadankeena inaga qaxisay si kale inagoo qaxin waxa weeye maskaxdii iyo dad intii maalka lahayd inta wadankii waxa ka qabsan waayay markay ay laayeen wixii ka soo horjeesta wixii ay caqli u arkaan wixii ay wadaaddo u arkaan waxay ganacsato u arkaan waxaa dhacday inay hantidii wadanka ka guurto wadamada gobolada kale ay dadka ay xoolihii soomaalida iyo awoodii soomaalida ay gasho marka saameynta uu yeelan doono haatan argagixisadan la jabiyo insha allah waxa weeye waxay keeni doontaa akhiiran in wadankeena ay dadkeena usoo noqdaan maalkii dibadda aada uu soo noqdo maskaxdii dibadda ay soo noqoto inteynaan halkaa joogno kamid baynu saasaynu u sugaynay inaynu meelaynu ku laaban karno awlaadeynu ku celi karno ay timaado marka arrintan arrin fudud maaha waa arrin aada iyo aada runtii saameyn weyn wadanka ugu yeelanaysa marka anigu intaasaan ku ekeynahayaa waxaan idinku mahadcelinayaa mar labaad hawsha aada soo qabateen wiilashii iyo gabdhihii wila noo soo qabtay ugu horeyso mahayta walaasheen markabo muxuu ahaye to saarax ninkan la yiraahdo kamaal xanuun
hawsha la-aantoodu nooma qabsoontay aad bay ugu mahadsan yihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan maqlay professor Misa inuu ahaa professor Jans professorkiisa inuu ahaa ayaan maqlay so maanta professor badanaa joogo yaa horta Soomaaliya high school kusoo dhigtay 70-meeyadii iyo 80-meeyadii كل حساب physics science kusoo qaateen soo maaha nin waxaa inala jooga curriculumkaas develop gareeyey la yiraahdo Axmed Mire Shire gadaal ayuu fadhiyaa oo xishoonayaa dani ayuu abtuu yahay aniga waxaan idhi wadinki dani soo kariyey the last 22 years miyaa maqlo maalinkaasaan harigaa hawshaa loo dhiibay oo arrintaas yarba loo dhiibay kasoo shaqeeyey saaka maandoorkii markaan soo tukanay maanta waxaan ku yidhi anigoo gaarigii soo galay sii socdaan waxaan ku yidhi qaali yidhi waxaan ku yidhi waa ogahay waxaa ii sheegaysa waa iska wada qabtaan ay hoos arrintaa u socotaa somaa caawa haa igu yidhi haa so professorka waa kasaa so dadka dadkii hore haloo sacdiyo ninka arkaysaan waa nin isbuuc ku dhameeya qur-aankii ninka bisha ramadaan kaliya sugtaan danaayno ay fantastic tahay nin mu'mina inuu yahay wama zaki ala ahad ma yaktaas Allah marka inaan sheegaan reetaas oo ku mahadsantihiin next waxaan soo dhaweynayaa kulli professorka bacdi curriculum boniti waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdiqafaar Wardheere بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي waxaan rabaa professor Miso inaan kaabo arrintiisa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay oo arrintan isu xilqaantay waxaan islahaa dagaalkan balaayada ah oo lagu jiro xagee ka gashaan baan horta islahaa anigu qof baan ahayo markaad daawato waxyaabaha ka socda iyo dhibaatada iyo dhalinyarada maaragtay ku dhimanaysa ama ku dhaawacmaysa runtii maaragtay waxayna tustay colaad zaa'id ah oo loo qabo dadkan Puntland iyo dalkan waaba lagu soo duulay waa ognahay marka waxaan rabaa inaan dadka forumkan loo sameeyey si gaar ah runtii ugu mahadceliyo sababtoo ah ma aha inaan u nimaano kaliya inaan isdhegaysano laakiin waa inaynu kharashkana bixinaa taageernaa ciidamada u ducaynaa isla markaasna aan hubinaa maaragtay in wixii hadda aan caawa bixino inay down payment tahay ee aan wadno horta intaa inaan isku guubaabino oo horta muhiimadda ugu weyn oo caawa aan unay intaas ahay dadka isu kaalay keenay marka mahaddaas gaarka ahaan usoo jeedinayaa ciidamada aad baan guubaabinayaa runtii iyagu hadday maaragtay dhimasho noqoto iyo hadday dhaawaca noqoto iyo wixii dhan waad u jeedaan dalkeenu runtii ma aha wax caadiya maaha waxa hadda ka socdaa nimankaa waxay sameeyeen meel kasta isaga yimaadeen ma aqaan inaad aragteen shalayto gabar baa waxay qortay article bay qortay gabar buugaag badan ka qortay dadka argagixisada ah oo inta badan maaragtay caalamka oo dhan bay ka qortaa marka waxay tiri Mary Harper baa inaad aragteen ma aqaan waxay tiri waddankan waxay tiri dadka wax dilaya badankoodu waa ajnabi bay tiri oo banaanka ka yimid oo ma aha dhalinyaro Soomaaliyeed ma ahay tiri marka waxay tusaale u soo qaadatay maalintii December carruurta badan lagu laayay qaarna la dhaawacay waxay tiri hal qof oo Soomaaliya kuma jirin waxay ahaayeen dadka waxaas geystay way tirisay waxay tiri waxay ka yimaadeen Libya Tunisia Yemen Morocco Algeria iyo Ethiopia intaasaa marka duulaan ka socdaa farsamadoodii bay yaqaaniin wixii ay waxaynayeen bay yaqaanaan waxayna u yimaadeen meesha haddaad akhrideen iyo ama aad daawateenba umay imaan sida shabaab oo kale inay maafiya inta noqdaan oo dadka canshuur ka qaataan oo yidhaahdaan Soomaali baan nahay oo diinta dalka lagu xukumo umay imaanin meesha waxay u yimaadeen inay inta degaan bays ka dhistaan ay adduunka kale iyo meel kasta ay uga duugaan
marka horta dagaalkan dagaal yar maaha mid koobanna ma aha oo hadda lagu sii dayn karo puntland keliya marka waxaan rabaa ma rabo inaan war ka dheereeyo dad badan oo xogogaalaa jooga madaxweynihii horaa jooga oo iga xogogaalsan oo warkiisa dhegaysan doontaan haddii alla idmo waxaan idiin sheegayaa wuu ina ku dheeraan karaa marka qofkii hadda inta washington degano inta loo yeeray imaan weydeen haddee kuwaas hadhow kolleyba iska ilaaliya dhufays la geli maysaa isha isaga haya nimankaas inta kalena waxaan filaynaa inay timaado oo dagaalkaan aynu si fiican u galno oo ku guubaabino oo dhaqaalaha kolleyba hadda inta yada odayaasha xabadda waxaan maranayaa inaysan qaadi karin bal dhaqaalaha keliya ayaan laga harkan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you. And very quickly, then, every successful man there is a successful woman behind them. Tama. Marka idinka literal aad ka dhigteen raggiyaa soo hormariseen dumarkiina gadaala geyseen marka waxaan rabaa gabdhihii ka dambeeyey inaan soo hormariyo ay ku jirto canabkeele she's going to be the next speaker marka baa jirto iga dhawaaqay waxaa laga waxaa jirta ayaam bashir waxaa jirto isbahaan iyo duro marka waxaan ku bilaabaynaa insha allah xildhibaan canabkeele please welcome. Thank you. And very quickly, then, every successful man there is a successful woman behind them. Tama. Marka idinka literal aad ka dhigteen raggiyaa soo hormariseen dumarkiina gadaala geyseen marka waxaan rabaa gabdhihii ka dambeeyey inaan soo hormariyo ay ku jirto canabkeele she's going to be the next speaker marka baa jirto iga dhawaaqay waxaa laga waxaa jirta ayaam bashir waxaa jirto isbahaan iyo duro marka waxaan ku bilaabaynaa insha allah xildhibaan canabkeele please welcome marka adiga hadli doono. intay soo socoto markaas uu sheegay video maanta aan arkay nin waxaa laga hadlayay ciraaq ka soo baxay ticket loo soo diray duwaay soo maray boosaaso ka dhigay ku meesha ka dagaalamaya marka dagaalkan waa dagaal soomaali oo aan soo dhawa. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. I'm sorry. وأصدق التصوير كما قدامك. واحد شورى مرة كسوي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبرني السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal hadal badan ma jiro waxaa jira wada ogtihiin cid badan baa jira communitiga sharafka badan rag iyo dumar mudanayaal iyo marwooyin aad baan idin salaamayaa salaan kadib waxaynu isugu nimid cid kasta way ogtahay maanta dalkeenu waad ogtahay waxaa ka socda dagaalkan baa ka socda runtii waxaa loo baahan yahay inaynu taageerno oona garab istaagno hiil iyo hoona aan usoo jeedino maxaan ku rahdaa ciidamada dagaalamaya ee geesiyiinta ee halyeeyada ah ee maxaan ku rahdaa ciidanka puntland ciidanka xoogga puntland runtii dagaal xun ayaa socda dagaal waxaa socda runtii laisku waad ogtihiin dalkeena in lagu soo duulay oo ay kusoo duuleen maxaan ku rahdaa argagixiso aada u xun oo runtii cidina inayna kala jeclayn sidaa daraaddeed walaalayaal waxaan jecelahay caawa aan isugu nimid inaynu si wanaagsan oo soomaalinimo leh oo dadnimo leh oo human being leh inaynu u taageerno sababtoo ah waxaa dhimanayo waa hooyooyin iyo waxa laga soo qaxiyay dhulkii waa hooyooyin yaryar caruur yaryar waa inaynu taageernaa waa inaynu hiil iyo hooba caawa aan la garab istaagnaa sababtoo ah puntland waad ogtihiin waa hooyadii federaalka waa hooyadii maamul goboleedyada anigu dowladda wayna tahay marka sida hayla yaabin haddaan isku dardiso waxoogaa waan xishoodaa marka walaalayaal waxaan inaga baahannahay si soomaalinimo leh oo walaaltinimo leh oo maxaan ku idhaahdaa maasha allah
marka waxaan ku raasi Soomaalinimada oo walaaltinimada inaynu ku taageerno Puntland waa hooyadii federaalka waa hooyadii maamul goboleedyada sidaa daraadeed waxa weeye walaalayaal caawa in jeebku aan furnaa waa inaan jeebku aynu maxaan ku raadaa furnaa ciidanka dhimanaya wadogtiin waa geesiyaal waxa weeyaan ciidanka yani maalin walba dhimanaya oo aragteen oo argagixisada la dagaalamayo waa ciidan run ahaantii geesiyaal oo halgeeya waxa weeye waxay u dhimanayaan oo dhiigooda u hooyaan waa hooyooyinka waa dhulkoodii hooyo waa dalkoodii caawo kalena caawo kale Soomaalinimada hal iskuso Soomaalinimada loo baahan yahay waa in la istaageero wada qabashada Soomaalinimada caawo kale laga baahan yahay waxa weeye caawo kale dumarka waliba dumarka iyo ragba caawo kale inay soo istaagaan weeyeen oo maxaa ku raada jeebka ay huraan oo nafta u huraan oo af iyo adibba aynu ku taageerno guul iyo gobonimo waxaan ka faa'iidaysanayaa oo u dirayaa hambalyo iyo dhiirigelin iyo garab istaagba aan u muujinaya af iyo adinba madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaan kaloo u dirayaa oo guul iyo gobonimo iyo si geesinimada ay u soo hooyiyeen maxaan ku raaddaa ii sheeg ay u soo hooyiyeen guulo badan oo la taaban karo aad aragteen ciidanka daraawiishta Puntland oo si gobonimo leh aan ayadan u salaamayaa shacabka Puntland meel kasta joogaan waxay u hiiliyeen madaxweynahooda waxay u hiiliyeen dalkooda waxay u hiiliyeen dadkooda guul iyo gobonimo halkaa ka wada waa inaad garab istaagtaan dowladdiina shacabkiina iyo ciidanka geesiyiinta ah oo inii dhimanaya waa inaad garab istaagtaan annaguna inagama seexanayna haddaan nahay diyaasbaraha ku nool ee Soomaaliyeed iyo kuwa maxaan ku raada Puntlandba salaamu calaykum waraxmatullaahi وعيا ولكن سيقول الدجال حكى هذا الكلام جنرال أحمد عبد الله الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قفكس مقعي نصر كفر اليوم حنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدي waxaan rabaa inaan u mahadceliyo runtii ciddii soo qabanqaabishay munaasabaddan qiimaha leh aad iyo aad ba mahadsantihiin aniga magacayga waxaa weeye Axmed Cabdullaahi Sheekh waxaan ahay generaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka soo qabtay xilal kala duwan Puntland iyo federaalkaba waxaan ahay diwaan oo kusoo jiray jaaliyadda DMV qoyskaygaba marka barasho wanaagsan dhammaan waxaan rabaa xoogaa inaan inaga warbixiyo xaaladaha diwaankan Puntland ka yimid boosaaso weliba iyo aagaha dagaalku ka socdo hadda waan ku laaban doonaa sidii odayaashii iga horreeyba sheegeen runtii dalkeen waxaa kusoo duulay argagixis caalami ah dowladda Puntland uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxay bilaabeen abaabul mar hore bishii Oktoobar bay ahayd markii oo ay bilaabeen diyaargarowgii ciidankii markeena ku dhaqaaqeen buuraha Cadmiskod oo rabaan howlgalka inay bilaabaan waxaa soo weerar runtii 12 nin oo argagixis caalami ah dhammaantood ajnabi ahaayeen siduu profesorku sheegay 7 waddan oo kala duwan ay ka yimaadeen tan waxay tusinaysaa dadkii caalamkii oo dhan buu haddana ku biirtay dalkeena in lagu soo duulay oo ajnabi kusoo duuleen taasna waxay runtii dhiirigelisay shacabweynaha iyo ciidankii oo isgarab socdo oo dagaalkaas wada galay runtiina guulo waaweyn baa laga gaaray aaga muhiim ah iyo goobo muhiim ah laga qabsaday sida Baledhidhin Timirshe iyo Turma Saaladwaan wiilal badanna runtii way ku shahiideen dagaalkaas meeshan waxaa rabaa inaa ugu faa'iidaysto ilaaha u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacanteena ilaahay ugu gaday waxaan rabaa inaan idin sheego dagaalkan aniga nin ciid baan ahay sargaal baan ahay intii ugu dhib badnayd baa dhiman waxaa weeye intii soke oo fudud waa hadda inta la galay intaasoo wiilna way naga dhaawacmeen intaasoo khasaaro wayna soo gaartay
laakiin dagaal haddii laga mar loo wajahaysto marna khasaarnaa ma dhacayso ciidankeenaan ku kalsoona wiilashiinaan Soomaaliyeed wiilashiinaan daraawiishta Puntland iyo ciidamada kala duwan heerarka kala duwan ku kalsoonaada guul ama geeri way ka xiriirtiri doonaan insha Allah taala argagixisada caalamiga dalkeena kusoo duulay waxaan rabaa inaan ugu booriyo runtiina bogaadino garabsaaga muujisaan ciidanka u baahan yahay garabsaagan anigana runtii sidaan la sheegay waa ku laaban doonaa waan inaga gaarsiin doonaa salaanta sida hore loo sheegayba bilaab fiican hana la sii wado insha Allah taala dhowr dowladood baa taageero hadda runtii oo ku taageero caafimaadka iyo duqeymaha cirka laakiin runtii isku tashi waa dagaalkan cid kale oo ay ku tashanaysa ma jirto haddana waa loo wada istaagay jaaliyadahana waxay ku taagan tahay reer Puntland marka Puntland ha noolaato waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Thank you, Janale. And waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen Dr. Abdiweli Maxamed Ali Gaas, the former Prime Minister of Somalia and former President of Puntland. Please welcome. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمانتين هذه المرومة هنضغي أضياشي يناديادي يقبلي سؤال أولي حفلة وبروفيسور ميسو وظهر هي بروفيسور كسير الشيخ ويليام وهيها معلم جامعة البلد الصومالية لكن الدنيا بهذا الواقع دينك يسكون كي الله جامعة الله هذه أيضا ما سنتهين شرفوا بين وقت هنا كسر قلنا حفلتنا بروح البدن وأنا جعلنا لها سيد الله نصو قال السفرة عليها وشيء مركو الله رئيسا وحنا رواينا همبرياليو مدحوينها iyo dawladda Puntland iyo shacabka Puntland iyo ciidanka Puntland hawsha adag oo ay istaageen runtii Axmed baan ka sheekaysanay dagaalkaasi dagaal sahlan maaha waana bilow dagaal waanu dheeraanaya sidaan idin muuqata marka hawl sahlan oo iska fudud oo usbuuc kusoo dhammaanaysa inaan nahay waan ognahay waxaan la dagaalamayaa cadow determin ah oo aan laabanayn inay dhintaan mooyaane si adag u dagaalami doona taageero caalamiya meelo badan ka heli doona dad ayaga lamida oo irhaabiyiin noolba jooga dhulka lagu dagaalamayaana waa dhul aada u adag hadda waxaan malanaya weli waxaa la joogaa casha dhankeedii soke waxay noqonaysaa in ilaa casha dusheeda la gaaro dhaadaan iyo dhulka kabacdi hoos loo dego marka yani tareenka dhulkaasi haddaad arki lahaydeen yani dhul sahlan ma ah dhulka haddii banaan lagula dagaalamaya maalin ma qaadatee sidii kii hore oo soo duulay laakiin hal baan idinku bishaarinaya ras ashuur waa laga adkaanaya maana guuraysanaya waxay kusoo duuleen waa la socotaan waa iyagii suuj iyo garmaal iyo garacad ka soo dega iyagoo kumaankum ah ciidankuna less than a week 7 beri ka yar ayay kusoo afjareen sababto waxay waqtigaasi dhulka ay kusoo duuleen ay yimaadeen oo garanaysan suuj garacad iyo garanaysan Soomaaliya garmaal iyo area inta dhaxaysa waa dhul deefalaad ahoo aysan tareen aan lagu dhibanayn ciidan ahaan in ay ciidan ka dagaalamaan galgala la socotaan ayaa October 1st 2014 lagula dagaalamay 3 beri ma qaadan ilaa la geeyay maxaa la yiraahdaa Axmed Bayga qandalay kusoo duuleen October 2016
iyana waa la socotaan sida ciidanku ay uga guulaysteen weliba waqti yar lagu soo afjaray tan midkeedu waxay tahay dhulka hadda ay ka dagaalamayaan ayaa wuxuu yahay dhul tareenkiisu aada u dhib badan yahay taas ayaana keenaysa waqti inuu leeyahay we never accepted meelaha kale haddii shabaabka dadku ay la heshiiyaan waxaan xasuustaa markii suujiya garmaadii garacad dumarka gabdhaha ugu tagay isbitaalka soo dhaawacmay islaamaha reer baadiyaha soo sheegayay meeshay marayaan meeshay joogaan marka dadka puntland maaha dad runtii soo dhaweeya dhaqamada noocaasa taas ayaana keenaysa marka shacabku aysan aqbalin inay nimankan ku dhex noolaadaan ku dhex gabadaan waxay sahlaysaa dagaalku fududaado dadku shacabku inuu kula jiro negotiationna kama galaan puntland kama gasho in ay markii ay soo duuleen kusoo duuleen 2016 ee garacadii kusoo duuleen suuji galmada garacad ayaa waxay soo waceen janaasiid dheero ciidamada hogaaminayay kaas waxay yidhaahdeen idama soconaa waxaan u soconnaa buuraha meesha hadda shabaab meesha hadda lagu dagaalamay daacishka halkaasaan u soconnaa daacish baan kula dagaalamaynaa noo bandhigay jidka kula waa laba kun hadda shabaab inta ku dhaafto ha gasho buurta ha gasho marka سعيد نوعها وايد قالنا وحول الماء هذا يا حال هذا إن سيدنا قف أي أمان جليا بتشوف هذا هو إسلام هاي وضعفيان أما هذا هو كوما سقطان أما متشوف حمر لي وجوجه أنا حمر جوجي أيا شبابك وحاي قبسده ويكحوق بتلبس الإسلام حسن دار ويسي رجيسي كاس واحد نوصل قالي نيكي هايستين محكمة لها حزب الإسلام مركب وحان دي على إيكي لو إنا وريستان روا محكمة لها حزب الإسلام وريس مركب وان ويديو حان كوري وان حجاب الله تبارنو وكورفر لي هذا الكيس عن المغربيسي دمات أنا كو قال لي السومة تغان كو جوابي لي marka waxaan ku iri maxaad usbuuc ka hor ayay boostadii garanaysa yani wasaaradda boostada horteeda islaama xaaqayo masaakiina oo suudimayaha ku dilay marka waxaan ku iri maxaad askarta la garay maxaad u daraysaan marka soo dhiibay moogta laakiin wuxuu sheegay wuxuu yiri barnaamijka qof islaam ah oo bystander ma jira qof islaam oo kaliya meel taagan ma jiro ama jihaadka la jirta ama ka soo jeeda waa fahmaysaa marka everybody is a fair game qof kastaaba waana falsafada ay ku shaqeeyaan waay hadaa la yaabaysaan jideedihiin waxay islaamaha u laynayaan waxay dadka u laynayaan waxay dadka u qarxinayaan this is the ideology yeah either you are with us or you are against us marka cid ay badbaadinayaan ma jirto walaa gabar walaa hooyo walaa qof yani miskiin ah walaa cid ay yani badbaad marka daat ayaa keenaysa marka in aan wax dialogue lala gelin nimankan sida ugu adagna loola dagaalamo wuxuu yahay marka inaga rool keeno dadkii ma joogne dabcan waxa weeye morally iyo materially inaan taageero ciidanka dagaalka kula jira maxaa dhacay waxa aan diidaynaa wax raqiis ah wax badan ma haddaba bataa dhibisa waa lacag wey laakiin dadba waxay bixinayaan the ultimate price muxuu yahay naftooday hurayaan janar gaagaale isaga iyo laba weysaa ku dhintay ka war marka waa aabbaha saddexda wiil ay kaga dhimatay meeshaas جاء راعي مسكابة معها يا ونحن ظاهر إيو رجل قاله وسنكري أوي ده قال كم حسوس تقرعد وحقول تقولي أبي حدنا تقرعد معها يقول غيابه هو رومان كيمي بوا حكوسوس إذا ما كنت كده بطلع رولا ما كان لها ديجنا ما كان لها وحاول يدد يعني صدوا من كرة الشري يدخلوا يدخلوا يدفعوا. النهارده هذيك واسي أي بحين يعني ultimate price
waxa weeye waxa idinku aad bixinaysaan idinkan anugu idin daynaya aad iyo aad mahadsan tihiin buntland ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha guulaystaan ciidanka la dagaalamaya irhaabiyiintaas guul iyo gobnaan u rajeynayna insha allah. scary وانا اوغيهاي ان ساوتيهين باي بوكول يجيب لنا يمد كجيران سو ugu saaran way adag kale marka inta ay arrinta fududahay in la dagaalamo oo muhiim shaqo soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. wax kasta waa qoray miisaad ogsiin tihiin oo islaamka waxa qoran ayaa had iyo jeer uu ku dhex socdaa. Ani barnaamijka inaan meeshaan ka hadlaa kuma jirin. Haddana aragteena waa horta la soo qabtay. Marka mar haddii uu soo qabto meel ku dhumato ma laha. Dad hadda intii ku filan cilmi aqoonna waa ka hadleen inta joogtana waa wada ogyihiin. Waxaan rabaa aayad quraan oo dadkan meesha fadhiyo iyo intii maqasha waxtar u ah ma quraanka oo dhan waxtar u yahay laakiin xagga dhaqaalaha marka la yidhaahdo meesha waxaan u joognaa inaan xoolo ka kasabno Ameerika xoolaha laga sameeya laakiin aayaddaas xoolo badan inaad kasabtid keeni karto inaan ka idhaahdo oo aan sheegan waa rabaa qof la arko adigana aad af soomaaliga maxaa lagu dhahaa tajruba bilcarabi maxaa af soomaaliga ku dhahnaa المهم واحد هو لا بركة اللي جاي وحصل علمي بعاي ولا فوصل معه وعشان جدري بعد العلم وأمريكا ليه وحصل أنا استبدل هنا ويسمع مركا حدي على يطلع استعماشي أو ذهبتي مركا استعمالي واحد ماشي على شيء جاي واحد بحس إن لبلاك سدحلاك أفرلاك إن هذا يصير أنا ماشي كشيء هاي لو ذي قانون لكن قف كسبه حلقي على إنه صن اسكت دين أو بروبين أو تجربة قليل لكن أنا وأخو قليل وأنا مني وأنا أركي ما نكون في هالمالنا ولا شيء صرت أفرت السرق بين صعطان وأنا عن تجربة سكول حجري أو نتوجد بيس شلة صامرتي مرة من أنا نفسي كشيء أو أنا على مثلا waxaan bixiyay $100 $2,000 aan maalintii ku xigtaan baan waxa jira been ugu sheegay gabar baa waxay tiri masaajid baa la dhisayaa waxaan rabaa inaan gabdhahan soo aruuriyo gabdhahaas wax u sheegtid ma taqaanaa oo masaajidkaas aad ku geysin magaris gabdhihii baan la hadlay waxaan ku iri gabdhow ninkaa dadka ugu lacag badan sababta ugu lacag badantiin waxaa weeye waa shaqaysataan waa kow dahab fara badan baad haysataan dahabka waa xoolo idinkaa iska leh rag idinkaa ka xoolo badan marka lacagtaas wax ka bixiya marka aniga faqiir aan ahaan ku eri ma shaqaysto oday aan nahay baagamuud aan nahay laakiin maadaama aan wacdigii samaynayo qofka markuu dadku wax faraayo inuu asagoo horta bilaabaa aniga intaasaan bixinaya intii ma sheegayo tabaan waaya safar aan ku jiray oo waxaan rabay inaan ahdo Soomaaliya markaan gabdhihii hadalka u dhameeyey oo wixii uu la helay ayagoo meeshii fadhiyaan aniga ka baxay suuqa Soomaalida joognay hoosaan u degay qof meel ii taagan baan u array Cabdalla waa kula socday waxaan rabay waad baxaysaa liidi inaan ku arkaan rabaye washad wiidi washadaas lacag badan baa ku jirta nin aan badanay iyo nin aan iswaraysanay midna maahay waa ku soo noqday gabdhihii ayagoo meeshii fadhiya qof ka tegay ma jirin waxaan ku yidhaha dawlad maxaa idinku lahay aayaddaas bay idiin sheegay qofkii wax bixiya waxay bedelkeeda hogaaso idimaan dhihin warshadaan lacagtaasaa ku jirta intaasna leeg marka ayaan hadalka dheerayna aayaddii maxay tahay marka aayadda ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay suuratu sabay ku jirtaa suuratu saba aayadda waxaa weeye 39 qul inna rabbii yabsutu الرزق liman yashaa'u ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين marka ingiriisi carabi iyo soomaali bay ku qoran tahay qofkii raba si akhriso
aayadda marka macnaha soonka waxaa waaye ilaahay baa risqiga bixiyo oo badiyo asagaana qofkii wax bixiyo bedelkeedii in ka badan siiyo ilaahay waxa isaaqana waa ilaahayga awood iskale